war degdega Xuutiyiinta Yemen ayaa galay diyaar garowgii ugu dambeeyay iyagoo soo bandhigay hubkoodii ugu cuslaa isla markaana ay ahaayeen kuwa ay ka geystaan duqeymaha oo rida gantaalada oo ridada dheer ilaa iyo Tel Aviv ay ku duqeeyeen ayay ku sheegeen in tani ay tahay digniintii ugu dambeysay isla markaana ay ku muujiyeen inay diyaar u yihiin si ay u duqeeyaan caasimadda Hargeysa ee Somaliland. qorshe culus ayaa socdo oo Xuutiyiinta Yemen ay ku doonayaan inay ugu dambeyntii ay ku duqeeyaan Berbera iyo Hargeysa kadib markii fariintoodii ugu dambeysay ay u soo direen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhinaca kale ee Somaliland ay cid u jawaabta ay waayeen. Xuutiyiinta Yemen ayay sheegeen in tani ay tahay markii ugu dambeysay isla markaana ay hubkooda ay geliyeen diyaar garowgii ugu dambeeyay iyadoo gantaalada ridada dheer ee nooca inta badan isticmaalaan oo ay ku duqeeyeen Tel Aviv ay ugu horeyso iyo maraakiibta Mareykanka ayay diyaariyeen waxayse aadeen dhanka iyo Berbera iyo Hargeysa ayay afkeeda aadeen si ay u duqeeyaan markaana caasimadda Hargeysa Somaliland iyo Berbera. halkani waa telefishinka caalamiga Hooyga Banaadir TV waa anigu Cali Shujaac hadaan ugu cusubtahay nagu soo beer like dhe si share garay muuqaalka asxaabtada si gaarsiiyay aynu guda galno. Xuutiyiinta Yemen ayay sheegeen inay diyaar u yihiin inay duqeeyaan caasimadda Hargeysa ee Somaliland kadib markii fariin adag ay u direen madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo iska indhatiray taas oo ay ku sheegeen inay marnaba aysan aqbali doonin Xuutiyiinta Yemen in laga aamuso fariintooda iyagoo horey xukuumadda federaalka Soomaaliya ay u siiyeen digniin ku aadan inay ilaashadaan dhulkooda isla markaana ay ka adkaadaan madaxweynaha iyo maamulkooda ee xagga Somaliland. waxay markaa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay duqeeyaan iyagoo muuqaalo laga faafiyay ee baraha bulshada ay muujinayaan siday diyaar garow adag ay u galeen Xuutiyiinta Yemen iyo inay hubkooda ay diyaarsadeen isla markaana ay aadiyeen dhanka iyo Hargeysa ay ku sheegeen inay diyaar u yihiin inay busto kale ay ka dhigaan caasimadda Hargeysa iyo si la mid ah Berberaba. waxay sheegeen in duqeymihii Tel Aviv ay ka geysan jireen oo burburiyay dhammaan dhismihii iyo adeegyadii muhiimka ahaa ee dalkaas iyo khasaarihii ka dhashay ay sheegeen inay noqon doonto wax yariis isla markaana tani ay noqon doonto mid la yaabi doono ayna ka darnaan doonto iyagoo sheegay isla markaana tusaale ay u soo qaateen wixii ka dhacay Tel Aviv mid ka daran inay ku dhigi doonaan caasimadda Hargeysa ee Somaliland iyo Berbera haddii ay Somaliland ay mar kale ay jawaab ka bixin weyso fariintii loo soo diray isla markaana ay ku sheegeen tani kaliya ay tahay habka kaliya ay wax ku faansin karaan. Xuutiyiinta Yemen ayay sheegeen inay diyaar u yihiin in cashar adag ay u dhigaan dadka reer Somaliland ee doonaya inay la tacaamulaan Sahyoonida Yahuuda iyo isla markaana ay diyaar u yihiin inay xiro military ay ka siiyaan Berbera. Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inaysan marnaba ka aamusi doonin ficilada xunxun oo ay sameynayaan hogaamiyaha madaxweyne Ciro iyo si la mid ah dowladdiisa. waxay kaloo xuseen in Soomaaliya ay fariimaha dhowr ay u direen isla markaana iyadoo laftirkeedaba ay jawaab ay siin weysay isla markaana ay ka adkaan waayeen Somaliland laakiin iyagoo ay sheegeen in Somaliland ay ka dhici doonto taariikhtii ugu horeysay. waxay kaloo u digeen dadka muwaadiniinta ee Soomaaliyeed ee halkaasi jooga iyagoo sheegay inay iskaga soo baxaan caasimadda Hargeysa iyo Berberaba waana labada meelood oo ay isha ay saartay kooxan Xuutiyiinta ee Yemen ay sheegeen inay u baahan yihiin inay ka geystaan duqeymo isla markaana ay u dhigaan cashar la miilaabaan ee Somaliland iyo dadkeedaba.